عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamij cusub oo taxana oo la magac baxay barashada cashuuraha waxaana soo diyaarisay waaxda xiriirka dadweynaha iyo xogta ee wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaana loogu talagalay in dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu baro noocyada kala duwan ee cashuuraha waa barnaamijkii labaad waa maxay ilaha dakhligu waxay u kala baxaan il dakhli leeyahay cashuur iyo mid aan cashuur ahayn labadaas bay kala baxaan kaan cashuurta ahayn cashuurta waa la garanayaa kaan cashuurtan waa liisamada iyo wixii la mid ah liisamada gaadiidka liisamada ganacsiga in fiiga kale ee baasaboorada waxa saaran dakhli aan cashuur ku iman waa fii ka kalena waa dakhliga cashuurta customka iyo cashuurahan biriga wada cashuurood waa maxay kharashaadka qofka loo ogol yahay iyo kuwan loo ogolay kharashaadka loo ogol yahay qofka la cashuurayo iyo kuwa aan loo ogolayn qofka la cashuurayo waxay u qaybsamaan waa laba qaybood dhammaan kharashaadka iyo khasaaraha uu galay qofku marka cashuur bixiyuhu inta lagu jiray sanad dakhliyeedka waxaa shardi ah in kharashkaasi iyo khasaarahaas uu khuseeyo howlaha sanad dakhliyeedkaas oo kaliya waa inuu jiraa khasaare uu galay cashuur bixiyuhu sanad dakhliyeedkaas kaasoo khuseeya howlaha sanad dakhliyeedkiisa kharash kasta iyo khasaare kasta oo ka baxsan dakhli sanadeedka ganacsadaha ama ganacsiga ee sanadkaas sida mid qoys raasamaal cashuur la bixiyey ama ganax caqabeed kaasi isaguma noqonayo mid loo ogol yahay inuu bixiyo cashuur bixiyo waa kuma qofka ay ku waajibtay cashuurtu qofka cashuurta ku waajibtay waa qof kasta oo shakhsi ah ama shirkad ah kaas oo ay ku waajibtay cashuur sharci waajibiyey kaas oo degan dalka ama aan deganayn balse dakhli ka hela xuduudda dalka Soomaaliland haddaba si dadku ay cashuurihii u bixiyaan xagee ayay ku yaalaan xafiisyada cashuuraha bariga xafiisyada cashuuraha bariga waxay ku yaalaan guud ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka oo dhan Hargeysa Burco Boorama Berbera Wajaale Ceelaf Weyn Caynaba Balugubadle Laascaanood saas ugu yaalaan degmooyinka iyo gobolada dalka oo dhan xafiisyada cashuuraha bariga ee dawladda maxamed Ismaaciil waqtigee ayay shaqaalaha cashuuraha barigu shaqeeyaan xafiisyada cashuuraha bariga iyo shaqaalihiisu waxay shaqeeyaan xilliyada gelin hore iyo gelin dambe gelinka hore oo kale waxay shaqeeyaan 7 ilaa maxaan ku yiraahdaa 2 kuwa gelinka dambe shaqeeyaan waxay shaqeeyaan 2 ilaa 5 meelaha gelinka dambe laga shaqeeyo waa meelaha adigu kantaroolada iyo maxaan ku yiraahdaa cashuurta bariga laakiin inta kale waxa laga shaqeeyaa gelin hore sida dawladda inta shaqeyso in la mid ah tani inta aynu isugu imanayna daawadayaal barnaamijkan ka xiga waxaan idinkaga tagaynaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh